magacayga waxaa la yiraahdaa Zeynab Axmed Faarax waxaan ku noolahay gobolka Galgaduud degmadiisa Dhuusamareeb oo aan deganahay muddo aad u badan waxaan ka qaatay muraabaxo bangiga Salaam ma ahan markii koowaad oo ka qaatay waxaan ka qaatay hore waxaan uga qaatay muraabaxo kale anoo Muqdisho jooga waxaan ka qaatay dhul ay iibiyeen bangigu si wanaagsan waa ii tixgeliyeen maadaama aan hore muraabaxo uga qaatay si wanaagsan aan ku bixiyay anoo Dhuusamareeb jooga waxaan ka ganacsadaa shidaalka waxaan u imid qarashkii oo kaashka ahaa igu yaraaday si aan dib ugu soo kabto ayaan waxaan u imid Salaam Bank waxaan ka qaatay muraabaxo shidaalkii ayay ii qaadeen mar labaad ku dhawaad dhowr boqol oo fuusto oo shidaal ahaan ka qaatay wali waxaan ku jiraa processkii maxaa la yiraahdaa bixinta paymentiga jeegii aan saxeexay waxaan maxaa la yiraahdaa la macaamilay in ka badan 2-3 goor ayaan Salaam Bank la macaamilay si wanaagsan ayayna ila macaamileen kabashadii aan soo kabtay hadda wixii gaarsiisay inaan soo kabano familkeygii aniga waxaan waxbarasho ka bixiyaa dad meelo qarashkoodu aad qaali u yahay ayaan waxbarasho ka bixiyaa ilmahayga qayb kamid ah Malaysia joogaan Malaysiana qarashku aad u badan yahay marka waxaan raadiyaa marka source kala duwan si aan qarashaadkaas iskaga dabaro Salaam Bankina way ku mahadsan tahay sida ay ii kabtay ganacsigeygana ay u kabtay horena ay iigu kabi jirto